أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آله إبراهيم إنك الحميد المجيد. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وإن سلام يا دمان أمد برنامج كذا كحران وأنا جو أمام مليون ملك استاذ شوكتان با وحان إذن ليهاي السودو هذا waxaan rabaa maanta inaan idinka sheekeeyo arrimo aan rabo in aan insha allah biidnillahi tacaala aan go-aansaday in aan ku dhaqmo. arrimahaasi waa 3 arrimood. ilaahay taladiisa mar walbaba allah baa talada iska leh, awoodda allah iska leh. marka adoon haddaanu nahayna waa inaan awoodda ilaahay aynaan ka tegin, laakiin haddaadan tashan waa lagu taliyaa. haddaadan tashan waa lagu taliyaa. sababtaasa waxay keenaysaa in aan idin sheego inaan tashaday. haddaan tashadayna talada allahna inay tahay meesheedii. ilaahay taladiisu mar walba waa meesheedii. marka sidaasaan rabaa inaan taladeeda idinkaga sheekeeyo maantayto. bishu waa March 21keedii 2021 waa March 21 way maantayto. marka taasaan rabaa inaan maanta idin sheego insha allah biidnillahi alkariim. 3 arrimoodaan ku tashaday waxa weeyaan, horta Soomaali waan bartay, waana ka dhashay, waana ku faraxsanahay inaan barto, inaan u barto asa dumar ahaan iyo asa rag ahaan, inaan barto meeshay iga taagnaan jireen iyo meesha aan ka taagnahay, inaan bartay wax aan shalayto aan ahaan jiray maanta inaanan ahayn. waxaasna waqtigu hadduuna wax ku barinin qof nool ma tihid. waqtigu waa inuu wax ku baraa. anigu markaan youtuber ahay waxyaalo badan oo fanahan baan soo gudbiyaa, laakiin maanta waxaan ka hadlayaa waxa runta ah oo daacaddu ay tahan ka hadlayaa. waxa runta ah oo daacaddu tahay 3 arrimood baan ku tashado. maadaama aan Soomaali rag iyo dumarba idin bartay, rag iyo dumarba maadaama ay idin bartay 3 arrimood baan ku tashado. mid waxa weeyaan number 1 in dee ay mar walbaba geeridu ina sugayso oo qof walbo annaga inaga mid ah ay geeri sugayso. number 1 oo geeridu waa number 1. waa u taagnahay taas. number 1 bayna ay tahay inaan anytime dhiman karo, waqti kasta inaan dhiman karo. midda labaad waxa weeyaan in aan barto luuqadaha qalaad. markaan luuqada qalaad bartana, luuqada qalaad markaan ku leeyahay American ku noolahay, waa inaan language-ka English-ka la dhaho inaan barto. insha allah markaan luuqada bartana ka bacdigeed inaan waxbarasho aado, oo waxbarashadeeda aan ku balangareynayo jaamacadaha Mareykanka ugu koreeyo sida Harvard oo kale inaan aado insha allah biidnillahi alkariim. waa second option-kayga. third option-kayga waxa weeyaan haddii aan luuqada baran waayo, dee waxbarashada furaheedu waa luuqada. luuqada af Soomaali ma rabo inaan ku barto. inaan waxaan leeyahay waxbarashada inaan af Soomaali ku barto ma rabo. waxaan rabaa waxbarashada English ku barto. maadaama aan Englishka haddii aan baran waayo, dee waxbarashadii kale Englishkaasa wuxuu yahay isbaaro u ah. haddaan Englishka baran waayo kuma fakarayo inaan waxbarasho kale aan barto isla waqtigaas ayada ah. laakiin waxaan ku balangareynayaa inaan baraha bulshada ka baxo. baraha bulshada inaan ka baxo. YouTuber inaanan noqonin. Facebook inaan laygu arag. TikTok inaan laygu arag. Snapchat inaan laygu arag. Instagram inaan laygu arag. Twitter inaan laygu arag. meel kalena kumaba jiro. taasaa waxaan ku tashaday anigu. go-aankayga ta ilaahay baa ka weyn, laakiin aniga waa waxaan jeclahay in aan noqdo America. guryo waxaa jira section 8 la dhaho, waliba low income kama rabo, section 8 baan rabaa inaan section 8 ablagaraysto. tuulooyinka la tagaa, waa laga soo ablagaraystaa, waa la soo qaataa. hal qol baan xaq u leeyahay. halkaas qol waan soo qaadanaya insha allah haddii ala yiraahdo. markaan soo qaato, markaas insha allah baan bara bulshada ayna igu arkaynin,
life kalena ayna ay arkaynin. maalintaan kaas galo ima arkaysaan. maalintaan wax barto oon meel gaarana ima arkaysaan. maalinta aan dhintana ima arkaysaan. saddexda waxyaalood oo aan go-aanka ku qaatayba waa saddex ayn Soomaali igu arkaynin iyo bini aadan kaleba. bini aadan kale yes way arkayaan haddaan low income dego. bini aadan kale yes way arkayaan, laakiin Soomaali saddexdaba igu arkamaysaa. haddaan dhinto waan dhinto ima arkaysaan. meel haddaan gaaro oo aan wax barto oo aan luqadda barto oon iskuul aado oon jaamacado aadana ima arkaysaan. okay, haddii aan low income aado oon low income noqdo na ima arkaysiin. saddexda waxyaaloodba iguma arkaysiin. laakiin waxaan leeyahay taageerayaal wanaagsan oo i jecel oo mar walbaba jeclaan lahaa inay waqti walbaba i arkaan. yes, idinka waxaad igu arki doontaan haddaan dhinto de waa dhinto. low income haddaan noqdayna am sorry inuu qofna i arko ma rabo. qof i jeclaayo qof i dhibcaa midna inuu i arko ma rabo. qof hadduu i arkayo aniga ilaa maalintaan soo baxay ilaa maanta igu xiran waa Saare Cali. lacalla hadduu qof i arkayo geeri layskumaba arko, laakiin lacalla kuwaan dhalay ma dhahayo. soo maaragtaan heerkaan gaaray. okay, saddexdaas option baan qaata. Soomaalida waxaan idiin sheegayaa laba arrimood ama ka badanba. Soomaalida waxaan idiin sheegayaa haddaan idin kala qaado oo rag iyo dumar idin kala qaado. Soomaalida raggeedu waa xaasid. nimanka Soomaalidu waa xaasid. weliba waxay xaasid ku yihiin haweenka Soomaalida. gabar walba meel kastaad joogtid arrinkaas meel dhigo. Soomaaligu waa xaasid. wuxuu xaasid ku yahay dumarka. wuxuu xaasid ku yahay victimka. wuxuu xaasid ku yahay caruurta. waay ninka Soomaaliga ah wuxuu xaasid ku yahay haweenka. hooyadii ha noqoto, walaashii ha noqoto, tuu dhalay ha noqoto, tuu qaba ha noqoto. waa ku xaasid. hooyadiisi intaa korinaysay waa ku xaasid oo maalintuu xoogaysto hooyadii ma jecla. hooyooyinka waxay ka dhiman waayeen waa gabdhaha. gabadha uu guursad uu qabo ma jecla. waqtigu hadduu la joojiyana wuu la joogaayo isagoo 4 naagood raadinayo. hadduu guursado inay wax dhasho oo lu gooyo unbuu ku jecel yahay mooyaane jacayl kale kuma hayo. experience baa un leeyahay. yes, nimanka kale adduunka ma dhahayo, waa nimanka Soomaalida. tuu qaba ma jecla, tuu dhalay ma jecla. soo habeenkii dhalatuuba ka naxaa. hay dhashay ayadaa is dhashay. soo gabaraad dhashay haddaad jeceshahay ayadaa is dhashay ma dhahdeen. xaaskaaga haddaad jeceshahayna ayadaa is dhashay ma dhahdeen. labadaba halkaas waxaad ka arkaysaa inaan nimanka Soomaaliyeed jeclayn dumarka iyo caruurta gabadhooda jeclayn. okay, dulmanaha ma jecla. dadka waxa dulma waa nimanka. qofka dulman waxa dulmay waa nin. majority-ga haweenku way yar yihiin inta dulantay. nimankaa dulmay ama wuu kufsaday oo kufsi buu ku dulmay, ama wuu dhalay oo wuu dayacay, ama xaqoodii buu ka qadiyey oo dhaxalkiiya waxa buu ka qadiyey, ama wuu u xoog sheegto waaridkood buu ka dilay, ama asagaaba iyaga dilay. majority dadka dulma waxa dulma waa ragga Soomaaliyeed. marka dulmanayaashana may jeclaa. soo hadday jeclaadaan dee dulmiga ayagu kusoo foorarsanayaan. nin kasta wax wuu dulmay majoritygooda. dumarka Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa taas waa tan ragga. inaan ragga idin jeclayn dumarka Soomaaliyeed. dumarka Soomaaliyeed hal baan u sheegayaa. mid walbaba waa xala dhalay. mid walbaba waa akhyaarad. mid walbaba waxbay taqaanaa. balaan A bay taqaanaa, balaan B iyo balaan C iyo intii ka badan oo damba ma taqaano. mid walba waxay taqaanaa inay tiraahdo saasaan anigu iri. haddaa taa tiri la raaci waayey maxaad samaynaysaa? ma heblaayaan warkeeda qaadan maayo heblaaya warkeeda. weligood iyo allaho dumarka Soomaaliyeed meeshay taagan yihiin bay taagnaanayaan. ama waxa barteen ama yayna wax baran. mid walbaba waxay leedahay baraha bulshada inaan soo galo baan rabaa. ma waxaan kuwa kale sheegin baad sheegin. inta ila timaado oon dhanaa ka joog meeshaan ciidaasay ka badan tahay. mid walba waxay rabtaa xeerada salkeeda inay soo taabato. inay istiraahdo waxay taasu dhihi weyda habar fadhidaa la fududayahay ma maqasho. habar roob hayaa habar walba inuu hayo bay u qabtaa ma maqasho. waxana loogu maamaha waa run. I agree. waan wada arkay
mid walbaba waxay oranaysaa anigaa saas raggu waxay leeyihiin balaan A balaan B balaan C balaan D balaan E balaan F ilaa iyo Z bay leeyihiin why because kan hadduu waaye waxay ku dhaheen dowlad goboleed xaq maahana waa xal wax kasta way raadiyaan raggu xal iyo xaqba way raadiyaan dumarku xalna ma raadiyaan xaqna ma raadiyaan waxbay qorshaysataa iyadoo canjeelo dubaysa bay ku dul sheekaysaa markaasay isduubtaa waxbaa markaas qalbigeeda ku jira waxaas haddaan la yeelinin hiblaayaa tiri warkeeda la yeelayaa miya nay dhaafi bay oranaysaa ma taqaano adduunku qof maskaxdii keliya kuma dhisna nin baa dhakhtar noqday oo wadnaha qala nin baa dhakhtar noqday oo mataqaanaa to kansarka daaweeya nin baa dhakhtar noqday oo mataqaanaa wax guda nin baa dhakhtar noqday oo maskaxda daaweeya ama naag baa noqotay cilmi baa la bartay oo diyaaraduhu bartay in la kiciyo technology buu bartay kale in la waxeeyo mataqaanaa to ma taqaano geel buu shubaa wuu yaqaanaa geel sida loo shubo lo buu raacaa sida loo raaca waa yaqaanaa lo-du booraa sida loo booro waa yaqaanaa ma yaqaanaan intaasoo waxyaalood baa jire haddii taadaan waxayn waaye tan kale barku sabood gare ma yaqaanaan dumarku weligood yaalahood waa barti yaqaan barno oma kororto bartaasaana weligiin taagnaanaysaan laakiin anigu MMS haddaan ahay dumarka Soomaaliyeed waa ka duwanaha waan dadaalay waxaan ku dadaalay inaan victimka u heliyo alxamdulillah waa ku guuleystay kuma guul daraysanino waxaan arkay gabdho Soomaaliyeed oo si fiican u hadlaayaan arkay oo caqli badan wiilal Soomaaliyeed oo si wanaagsan u hadlaayo waxaan arkay caqli badan okay You know what genuinely upsets me about this? Somalida wallahi billahi tallahi they have the most backward thinking I have ever seen in my lifetime, yeah? Wiil Somali hadana dilo iska daareerkii dhale qabiilkii dhammaa oo heegana soo caray digdig wiilkii baa naga dilay magtiisii dhiigiisii but as soon as a woman is raped my arms nana abin na shibda na qari na sheegan why naf go'day waa tagtay waa laga samray they actually died Allah naxariisto qof dhan oo adduunka taagan oo traumada lagu sameeyay weligiisa ka kaceen maskaxda ka dilay even generations to come ilmahay uur qaad doonta xataa maskaxda ka wasan yihiin ya waxa laga qabanayo wallahi Soomaaliya qaadirantiin wasaqaatiin wallahi billahi yes thank you ardadaydi way dadkan waa dadkii waliba wadamadan ku dhashay oo caqliga leh dhalinyarada ah wiilal bay leeyihiin gabdhay leeyihiin runtay og yihiin yes waxay sheegaysaa waa sax marka waan guuleystay markaan dadkaan oo kala arko waan guuleystay waxaan ku guuleystay inuu victim ku jiro oo qofku marka la dulmo inuu damage yahay dad garanaya hadday ayaga yihiin iyo haddaysan ku dhicinba garanaya inuu victim jiro oo qofku marka damage la gaarsiiyo inuu sorry u baahan yahay in la daaweeyo u baahan yahay in loo naxariisto u baahan yahay marka dad wax fahmaya waan soo saaray I'm proud waan dadaalay waxaan ku dadaalayna miraheedii waa kuwana iyo kuwa kaloo badanna way jiraan Soomaali ah kuwa victim ah oo hadlaayana way jiraan kuwa hadli doonana way jiraan ma khasaarin marka waxaan ku hadlay kuma khasaarinin laakiin anigu waxaan ahaa victim kuwa iga waaweyn ba ahaa waliba rape victim ah la soo rape gareeyay laakiin Soomaali waa idin bartay oo waxaad tihiin dad aan dadkooda rabinin qofka dhintay iyo qofka maskiinka iyo qofka inku waxaynayaan iyo qofkaasay ka dhigaan inay jecel yihiin laakiin may jecle ya waxa weeyaan afka ka bartay so aniga waxaan go'aansaday saddexdaas arrimood inaan insha Allah biidnillahi alkariim inaan noqdo qofka channelkayga daawado subscribe-ka ii saar thumb up-ka ii saar ii share garee markaan musqulaha ku qubaysanaayo iyo markaan hadlaayo iyo markaan dowladaha ka hadlaayo iyo aniga dowladda Soomaaliya dad masaakiin ah ku hoos nool inay noolaato waan jeclahay dadka masaakiinta inay biis helaan waan jeclahay okay dani in laga raayo oo wax la baro sharciga la baro waan jeclahay oo biri uu ku quusto ya oo uu dhaho mid kale wariyaa dumarka hala qiimeeyo oo anigu waxaan beerta u faraayay gabdhaha Soomaaliyeed qadar Alle ku qabatay ma rabin inay igu dhacdo way igu dhacday laakiin inuu biri ka digtoonaado inay gabdhaha Soomaaliyeed xaq leeyihiin taasaan danina ugu dhaganahay okay farmaajo waa madaxweynaha Soomaaliya okay uma socdo anigu intaan aado iqaabil ma dhahayo soo haddaan u tago maxaan u sheegaa hadda ka hor ba Cabdiweli Gaas wuxuu imaaday Minnesota markaasa
nin abtigay ahaa la socday oo waxay ahaayeen dadkii kusoo dhaweeyey magaalada. So wuxuu igu yiri ma rabtaa odaga ma kuu geeya? waxaan ku yiri haddaan u tago maxaan weydiinaya, maxaan u sheegaya? siyaasad ma rabo, kursi ma rabo, American jooga, gaajo ima hayso, shaqaad kama raadinayo, wax tala aan ku darsanayo naag baaban ka haya taladeeda yeeriya, waqti uma hayo. aran hafa waxaan ugu tago maanteed oo daruuriya ma jiraan. hebel ii geena dee anigu kama helo, waligayna kama heli jirinin. So laakiin dani ii gee waxa igu kaliftay kiiska caashaan kala hadlayay inuu xaqa ka maro. xaqiina wuu dhacay oo ilaahay intuu ugu talagalay waa la dilay. wiilka kale harayna kuma doodin anagu dee waxa weeyaan reer hal wiil laga dilay wiilka kale maskiinka oo la duufsaday in loogu daro wax benefit uu sameynayay malahan. gabadha aabay lahayd aabaheedana go'aan ka qaatay, laakiin anigu waxaan rabay xurmo inuu i xurmeeyo isagoo i yaqaana inaan MMS ahay oo hadlo ilaa iyo maalinta ilaa caawana maalin walba waa sheegaa. hadduu xilka ka tagana saasaan u sheegi doonaa. so wuxuu ogaan doonaa ceeb mooyaane inuusan manfac ka soo qaadinin dowladnimadii Puntland oo ku noqday madaxweynaha. waanigu MMS go'aankaasaa ii jeexan. haddaa i jeclayd iyo haddaa i nibcayd intaba, haddaa i jeclayd thank you waa kuu abaal hayaa, waana ku ogahay waxaad igu jeclaataana meeshii jira. okay, haddaad i nibcaydna dee qof kastoo social mediaha ku jira nibcow. so qof nicib waa qof xanuunsan. qof xanuunsanna waqti uma hayo. so qof xanuunsan time uma hayo. so intaasaan rabaa inaan idin sheego. laakiin hal ogaada qof kasta inuu naftiisa jecel yahay. barafuumkan maa waxaan ku arkay dukaan maalin hore, marka ma oolinin asaga sidii maalintii u uraayay igama uraayo hadda. maqaan ma haysashada aan haystaa. it was nice, wax udgoon oo khafiif ah weeye. marka sambalkii kaliya haray isagoo caadi ah uu dhammaada. marka waan jeclaada ku noqday isku buufiyey because waxa yaalaki sambalka hayo la isku buufin jiray. waxyaalo waxaa jira markaan isku buufiyo jirkayga galo. marka waa la ii order gareeyay shalay maa daraad baan kasoo qaatay marka dukaankii. so I love it, waan jeclahay. waxaan u gataa inaan jeclahay. baraha bulshada waxaan ugu jiraa anaa jecel. laakiin saddexda go'aanaan qaatay mid waa dhimasho oo qof kasta wuu sugayaa, midna waa inaan waxaan jeclahay ka haro oo wax kaloon jeclahay ku bedesho. waxaan ku bedelanaya aragtidiina inaan ilaahay la shawro kaliya oo aan tukado oo cibaadaysto part time yar oo shaqaysto intaan retirementiga ka gaarayo oo aan Soomaali arkin anoo idi aqaana idi dhageysan social media ba inaan dhageysanin, YouTube furin, Facebook furin, meelna xataa qof ku jira inaan arkinin oo Soomaali ah. haddaan cid dhageysanayeen ummado kale inaan dhageysto. taas waa balaankayga labaad. balaankayga saddexaadna waxa weeyaan inaan intaan wax barto, luuqadda barto, inaan jaamacadaha qaaliga ah aado oo anigu waliba aan jeclahay inaan Harvard tago, Boston, Massachusetts oo ah meeshii kow markaan Mareykan imid. San Diego kasoo degay 2 bilood baan joogay. meeshii iigu xigtay oo tagay baa waxay ahayd Boston. in haddaan luuqadda soo barto inaan insha Allah biidnillahi alkariim inaan tago Boston, Harvard, inaan aado. that's my plan kayga saddexaad. waa idin jeclahay. qof kastoo bini aadanow ku xisaabtan sida haddar wax dhimanaya, ku xisaabtan siduu qof weligiis joogaya, ku xisaabtan inaad choice leedahay oo choicekaagii hore hadduu kugu adkaado aad choice labaad leedahay. because inaan Soomaali YouTube u dhex fadhiyo balaankayga ma ahan. waa idin salaamayaa. waanu MMS waxaan idin leeyahay horay u socda. Soomaali raggeedu waa xaasid, ayaga isboonbooniya. maantay million baan gaari lahaa subscribe, laakiin xaasidnimo ragga ka timid weeye waxa la ii cuna qabateeya. laakiin I don't care. intii alla iigu talagalay na waan gaaray. intaan alla iigu talagalina alla iiguma talagelinin. laakiin wax badan baan ka bartay baraha bulshada. waa anigoo MMS oo idin leh salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.